su-aasheeda koowaad waxay tahay dalku hadda wuxuu ku jiraa xilligii doorashada waxaa u sharaxan madaxweynenimada ilaa iyo 10 qof aaway qofkii al-shabaab u sharaxna mise al-shabaab miyayna soo sharaxin qof bismillahi raxmaani raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin runtii waxa weeye waxaad u aragto inay wax saxa oo xaq ay yihiin ayaa lagu darsadaa cidda ku dooranayso ama cidda aad rabto ayaa loo maxay heeday lagu darsadaa waxa meesha ka socdo dhan ayaan wax aragnaa inay yihiin wax baadila oo wax jira aan ahayn xaq aan ku soconin xaq darraa iyaga dhan marka waxa weeye xaq darrana weligaa alla waxba laguma darsado marka saas daraaddeed annagu laa'iqno ma ahan waxaasoo kaleeto ama nooma cunnato waxaasoo kaleeto inaan wax ku darsanno maxaa yeele wax ku dhisan dhammaantood baadil ku dhisan weeye xaq darro al-shabaab maxay ku diiday inay shacabka Soomaali doortaan dadka hogaaminayo al-shabaab maxay uga soo horjeedaa dimuqraadinimada horta meesha waxaad sheegtay doorasho laakiin doorasho kama jirto waxaa weeye xulasho ay xulanayaan dadka gaalada ah iyo dadka ay gaaladu keensatay cidda ay rabaan iyo cidda u fulinaysa ahdaafta iyo ajandaha ay leeyihiin u fulinaysa marka election meesha ma yaalo selection waaye waxaan leenahay marka dee ummad Soomaaliyeed yaan la nabin oo waxa weeye aan la barobagaanin ummad Soomaaliyeed ma dooranayso doorashana ma laha waa cid waxaad xulanaysaana waa cidda iyada ah waxaad tiri waxa meesha ka socdo doorasho ma waa xulasho amirada shabaab dadka ma doortaan maxay al-shabaab uga duwan tahay waxa ka socdo aad sheegayso aan doorashada ahayn waxay kaga duwan tahay runtii waxa weeye amirada al-shabaab waxay ku socdaa la doortaa laakiin waxaa lagu doortaa dariiq waafaqsan shareecada ilaahi subxaanahu wa tacaala innaga waxaana dad muslimiina dadka muslimiintana allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u sameeyey dariiq iyo waddo ay cidda hogaaminaysa ay ku doortaan taani allah subxaanahu wa tacaala waxa uu u sameeyey qawaaniin iyo maxay shuruuc cidda la dooranayo laftigeedana laga rabo oo mulzim ku ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo jideeyey oo uu noo sameeyey marka ciddii laga helo maxaa weeye maxaa la dhahaa qawaaniinta laga helo ama laga helo waxa weeye sifooyinkaas laga helo laguna doorto qaabkii waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa noo nabi sallallahu alayhi wasallam ay ku dhisnaayeen lagu doorto waa la doortay waxa weeye laakiin doorashada islaamku uu leeyahay iyo waxa farqi u dhaxeeya doorashada ay rabaan nimanka dimuqraadiyada sheegta ee gaalada ah waxa ay rabaan ayaa kala duwan waxaan leenahay anaga marka waa la doortay waxa weeye umaradeena iyo madaxdeena iyo walaadeena iyo waa la doortaa dariiq waafaqsan shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala hadda sida ololaha socdo dalka waxaa ku jiro in dumarka wax laga siiyo hogaaminta dalka al-shabaab taas maxay ka qabtaa waqti al-shabaab hogaamiye dumar u dooran doontana ma jirtaa horta inaga waxaan nahay dad muslimiina dadka muslimiinta ayna waxa weeye allah subxaanahu wa tacaala meesha uu dhigo ayaa laga rabaa inay dhigmaan haddii waxa weeye allah subxaanahu wa tacaala ay rasuulkiisa wax jideeyeen dadka muslimiinta xaq uma laha inay ay wax ka kala doortaan ay say rabaan ay yeelaan qadiyadda labaad oo aan rabo inaan caddeeyo waxa weeye dadka maanta soo sheeganaya dumar inay yihiin ayna una ololeynayaan in waxa weeye ay rabaan in dumarka xuquuqdooda iyo sida ay ku sheegaan iyo ay soo celiyaan ay u doodayaan waxaan leenahay kuwaasi ma matelaan dumarka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ma matelaan waa runtii waxa weeye dad ay dabada ka soo riixeen oo waxa weeye ay soo programinayaan nimanka gaalada ah nimanka dimuqraadiyiinta ah ay soo riixayaan iyagaasaas ku sad goosanaya iyagoo kale dana ka dambeeya midan hadda ay ka rabaan ka dambeeya hadafkaas oo ah in la fasaadiyo bulshada muslimiinta sida ay gaaladuba ay u fasaaday maadaama anagu dad muslimiina aan nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala gabadha muslimadda iyo wiilka muslimkaaba uu qiimeeyey ahdaafna wuu u kala yeelay gabdhihiina shaqaa loo yeelay wiilashiina ama raggiina shaqaa loo yeelay qolo walba marka shaqadeedii ayaanu mar rabnaa inaan ku celin haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala qadiyadda ugu dambaysa waxa weeye marka ragga laftigoodii ayaan waxa weeye majaal ugu wada furayn qiyaadada iyo waxa weeye madaxtinimada oo rag badan oo sifaadka laga waayey qiyaadada laga waayey ayaan helaynin dumar iska daa warkeeda waxaan leenahay marka islaamku meeshii uu dhigay dumarka ayaanu dhigaynaa islaamkeena diinteennana kuma hayno gabar madax u noqotay dad maxay muslimiina oo waxa weeye ama wilaayo ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama wasiir intaba madax u noqotay anaga kuma hayno diinteenna kuma hayno al-shabaabna waxaa isteerin u ah oon rabno cidda ku farxaysa ku farxdo cidda ka naxaysa ka naxdo waxaa isteerin al-shabaab waxa weeye kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnadii nabigeena maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh wixii waafaqa waa waafaqsana wixii waafaqa waa ma waafaqsan siyaasadda dalka waxay ku dhisan tahay mise ku salaysan tahay qabiil mise waxa loo yaqaano 4.5 al-shabaab way ka soo horjeedaa intaan maqlay laakiin markaad fiiriso gobollada al-shabaab ragga loo doortay inay ka noqdaan amiirada
kama soo jeedaan qabaa'ilada meesha degan beelaha meesha degan intooda badan taasi miin ahayn 4.5 oo shaati kale loo xiro wixiiba hadduu qabiil mar walba gadaal uga jirayo laakiin ayna ololeh mana annaga waxa weeye horta qabiilka waxaan aaminsanahay sida ilaahay ka yidhi subxaanahu wa tacaala inuu yahay litacaarafu in la isku garto la isku xiriiriyo ninba qaraabadiisa uu ku xiriiriyo in adeerka iyo qilbabtiga iyo cidda baahan la isku garabsiiyo sida inuu yahay laakiin uma aragno sida maanta ay u arkaan nimankan gaalada ah iyo nimanka murtadiinta ee daba socda siday u arkaan oo ah in asaga wax lagu qaybiyo asaga wax lagu dhiso midna uma aragno annaga waxay ku xiran tahay cidda horta madax noo noqonaysa meesha ay madax ka noqonaysaba laba shay ayaa lagu xulaa labadaa shay waxa weeye inuu leeyahay horta awood iyo imkaaniyo wax maamuli karta oo waxa weeye marka laga soo tago islaamnimada awal shardigu waa inuu muslim yahay oo nin diinta ilaahay sharciga ku dhaqamaya u yahay laakiin marka dadka muslimiinta dhexdooda ay noqoto laba shardiya laga rabaa shardiga koowaad waxa weeye in uu horta qawi yahay oo waxa weeye ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin inuu qawi yahay horta marka horeeto in dee wax maamuli karo xoog le inuu yahay yani oo siyaasad iyo caqli laxan ka leh qadiyadda labaadna waxa weeye inuu yahay amiin inuu yahay oo waxa weeye dadka muslimiinta ah hantidoodii naftoodii maalkoodii cadaaladoodii wixii o dhan waxay nin aamin ah inuu yahay labadaa haddii laga helo magac uu raba ha yeesho qabiilka uu doono ha ka soo jeedo reerka uu raba ha noqdo isagaasaa looga dhigaa madax iyasaana la geeyaa ee kuma dhisnin aslan waxa la yidhaahdo qabiil iyo qabyaalad midna kuma dhisnin walaayaadka haddaad soo wareegtana ma arkaysid nin lagu soo xulay meeshaan qabiil hebelaa degan lagu soo xulay ma jiro waa laga yaabaa nin deegaanka uu ka dhashay qabiilkiisa in madax looga dhigo iyadoo loo arkay markaa inuu qawi iyo aamin yahay waa laga yaabaa in marka nin qabiil kale ah madax looga dhigo iyadoo loo arkayo qawi aamin inuu yahay shuruudaha nooma xiran annaga al-shabaab waxay sheegataa inay la dagaalamayso dowladda soomaaliya markaad fiirinayso meelaha qaraxyada iyo la beegsadaan waxaa ka mid ah hoteello oo dad badan joogaan makhaayado iyo meelaha shaaxa lagu gado taasi haddii al-shabaab dowladda la dagaalamayso maxay meelahaas oo la beegsataa qaraxyada runtii waxa weeye annaga horta awalan qofka muslimka dhiiggiisa wuxuu naga joogaa meel aad iyo aad u weyn marnana xaraka shabaab mujaahidiin ma kuma degdegayso mana ku xadgudbayso qof muslima dhiiggeed biidni illahi tabaaraka wa tacaala ahdaafteedana ka mid maaha bal waxa ay jecel yihiin waxa weeye in gaal uu fakado intii muslim uu dhiman lahaa xataa gaal ka fakado laakiin waxaa rabaa in la isweydiiyo meelaha hadda hoteelada lagu sheegayo hoteello ma yihiin mise waa xerooyin ciidan weeye waxaan ognahay hoteelada muqdisho ninkii tegey yaa garanaya kolley hoteelana waa hoteeladka shacabka muslimiinta caadiga iska seexdaan ummaddu ay degan tahay weligeed al-shabaab ma aysan qarxinin laakiin hoteelada maanta la qarxinayo dhammaantood la fiiriyo awalan waxaa lagu gadaamay waxa weeye dhagax waaweyn oo waxa weeye difaacyo ah ثانيا waxaa lagu soo xashriye lagu soo kulmiye lagu soo ururiyay ciidan iyo jiyuush kala duwan oo inta ilaalinaysa wax meesha ku jira taa waxay tusinaysaa horta meesha inaysan hayn hotel inaysan hayn maxay hoteelada dadka shacabka muslimiinta ay degan yihiin lama ilaaliyo dhagax laguma gooyo qadiyada labaad waxa weeye inagu waxaan la dagaalsanahay dadaan la dagaalsanahay dadkaas waxa weeye dadka gaalada ah iyo dadka gaalada raacsan ee murtadiinta meesha ay galaan magaca ay u baxsadaan ictibaar ma laha haddii xero caskari ay dhahaan ama ay dhahaan xero ciidan iyo hadday u bixiyaan intay degaan ay hotel u bixiyaan macnaha isku mid weeye waxaan leenahay marka hoteelada waxa loo yaqaan maanta illee waa la qarxiyay dhammaantood waxay xiraan ciidan weeye waa wasaarado ay leeyihiin nimanka gaalada raacsan iyo gaalada laftigooda ay leeyihiin wasaaraddii maaliyadda hotel ay degan tahay wasaaraddii waxa weeye gaadiidka cirka waxay ku tulaan hotel ay degan yihiin wasaaraddii waxbarashada hotel degan tahay amiiradii al-shabaab markii dadka la hadlayaan mise la qudbeynayaan mise makhaayadaha ay joogaan haddii intii dowladdii soomaaliya soo dirsato askar mise diyuurado soo dirsato iyo meeshaas qarax la beegsato oo laga yaabo inay hal amiiroo shabaab ay ku dilaan ay laakiin dad badanoo shacab ah ku dhammaadaan taasoo kale miyayna ahayn taad hadda aad noo sheegaysay taasoo kalena ma wax la aqbali karaa horta inagu maahan maxay ahaday shacabka muslimiinta anagu isku mid ah muslimiin aan nahay isku dhiiganahay isku damaan nahay gaaladuna runtii annagoon xataa meesha ma teginin iska daaya oo shacabka sida keligood ahiin ayay laayaan amiir shabaab iyo waxa weye nin shabaab xataa askarigiisa uusan ku jirin dadkeenna habeen iyo maalin yaan uga digna dhanaa war ka leexda ka carara waxaana weeye nin aan nimankaa taageersanayn hoteelada ay seexdeen ma tago idan waxa weeye waxa meesha tagaahay 99.9
iyo weliba maxaa dhihi karo boqolkiiba boqol dhihi karo waa iyakii madaxdoodii iyo waxa weeye sirdoonkoodii iyo waxa weeye dadkii iyaga maxaa u ahaa ciidanka u ahaa staafka waardiya u ahaa dadkaasaa hoteelada yaa taga haddaan wax qarxinayno waxaad maqli lahayd hotel ku yaala bakaaraa la qarxiyey waxaad maqli lahayd hotel ku yaala suuqa xoolaha la qarxiyey waxaad maqli hotel ku yaala waxa hurwaaya la qarxiyey ayaad maqli lahayd haddii aan hotel kasta qarxinayno laakiin hoteelada makal mukarrama ku safan waxa way nimanka wasaaradahoodii markay u adkaysan waayeen intay meel samaystaan isku aamini waayeen oo hoteelada ay soo galeen taa hadda waxa waa xero ciidan hotel lama yiraahdo umana qasdin qof muslim oo Soomaaliya ama muslim kale xataa uma qasdin anigu ila dilo marna aad iyo aad aan uga taxadirnaa meesha la gelayna intaasoo bilooda laga yaabaa in waxa weeye lagu hayo mukhaabaraad sirdoon lagu hayo